maxaa qofka ka dhigaya muwaadin dhab ah macalinka oo lulayo maheysta oo ifdiye musawirka oo baraha bulshada ku dhajiyo maalinta xorriyadda mise waxaa jira wax kale oo ka weyn intaas oo dhan bal ka fikir laba qof ayaa taagan mid walba wuxuu leeyahay calanka qaranka mid walba wuxuu qaadayaa heestii wadaniga ahayd mid walba wuxuu ku hadlayaa erayo qurux badan oo wadaniyad ka buuxda laakiin marka kaamiradu danto midkood wuxuu ilaaliyaa hantida shacabka kan kalena wuxuu ka faa'iidaystaa xilka uu hayo su'aashu waxay tahay daawade labadooda keebaa wadani dhab ah qofku ma noqon karaa wadani af ahaan isla markaana ficil ahaan wax kasta oo uu sameeyo ay dhaawacayaan dalkiisa taasi waa dood aan maanta isku dayi doono inaan si degan oo maskax furan u falanqayno ma aha si aan cid ku weerarno mana aha si aan qof u difaacno laakiin waa inaan isweydiino wadaniyadu dhab ahaantii waa maxay soo dhawaada dhammaantiin muuqaalkan wuxuu ka hadlayaa mawduuc dadka Soomaaliyeed iyo dunida muddo dheer ka dhex taagnaa mar kasta oo laga hadlo wadaniyada dadku waxay isku khilaafaan hal arrin qaar waxay yiraahdaan wadaniyadu waa dareen qaar kale waxay leeyihiin wadaniyadu waa ficil qaar kalena waxay qabaan in qofka lagu garto waxa uu sameeyo marka uu helo awood haddaba midkee sax ah aan wada falanqeyno qaybta koowaad waa maxay wadaniyad erayga wadaniyad dad walba si isku mid ah ma fahmaan qof wuxuu u arkaa jacaylka dalka qof kale wuxuu u arkaa difaaca qaranka mid saddexaad wuxuu leeyahay wadaniyadu waa inaad ilaaliso hantida shacabka waxaa kale oo jira dad qaba in wadaniyadu aysan ahayn hadal ay tahay ficil maalin kasta la sameeyo bal isweydii haddii qofku si joogto ah u ilaaliyo nadaafadda deegaanka cashuurtiisana bixiyo xeerkana dooro laakiin uusan weligiis ka qaybgelin munaasabado qaran ma wadani baa dhanka kale haddii qof maalin kasta ku hadlo wadaniyad laakiin uu ku xadgudbo hantida dadka ma noqonayaa wadani dhab ah su'aalahan jawaabtooda ma fududa laakiin waxay inoo furayaan albaab weyn oo fikir ah qaybta labaad hadalka iyo ficilka waxaa jira oraah caan ah oo leh ficilku uu ka cod dheer yahay hadalka qof kasta wuu hadli karaa qof kasta wuxuu qori karaa qoraallo qurux badan qof kasta wuxuu qaadi karaa heeso wadani ah laakiin waxa ugu adag waa ficilka taariikhda dunida waxaa soo maray dad hadalkoodu aad u qurux badnaa laakiin markii ay awood heleen dadkii ayay dulmiyeen waxaa kaloo jiray dad aan hadal badnayn laakiin ficilkooda noqday mid taariikhda bedelay haddaba midkee baa muhiim ah hadalka mise ficilka waxaa laga yaabaa in jawaabtu tahay labadoodu way muhiim yihiin laakiin haddii labadaas ay kala tagaan waxa qiimaha leh waa ficilka sababtoo ah ficilka ayaa muujinaya waxa qofka dhab ahaan rumaysan yahay su'aal haddii aad aragto qof had iyo jeer ku hadlaya wadaniyad laakiin bulshada dhexdeeda aan wax faa'iido ah ku lahayn sideed u qiimeyn lahayd dhanka kale qof aan hadal badan jecleen laakiin si joogto ah bulshada waxa ugu qabtaa keebaa kuu dhow jawaabtaada ku qor faalooyinka qaybta saddexaad siyaasaddu ma tahay halbeega wadaniyadda marka laga hadlayo wadaniyadda dadka badankood waxay si toos ah u eegaan siyaasiyiinta sababtu way caddahay go'aamada ugu waaweyn ee saameeya mustaqbalka dadka iyo dalka inta badan waxay ka yimaadaan hoggaanka laakiin su'aal muhiim ah ayaa jidha daawade siyaasi kasta oo ku hadla wadaniyad ma wada yahay wadani jawaabta degdega ahi waa maya sidoo kale siyaasi kasta oo la dhaleeceeyo ma wada yahay qof dalkiisa ka soo horjeeda jawaabtu sidoo kale waa maya dunidu ma aha madow iyo caddaan oo keliya waxaa jidha dad si daacad ah u shaqeeya inkastoo qaladaad ay galaan waxaa kaloo jidha dad hadalkoodu aad u qurux badan yahay laakiin ficilkooda uusan la jaanqaadin taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaan dadka ku qiimeyno waxqabadkooda ee aan ku koobnaan hal khudbad ama hal munaasabad bal qiyaas laba hogaamiye mid kasta wuxuu jeedinayaa khudbad wadanideed mid kasta wuxuu leeyahay dalkan waan u adeegayaa isagoo hoos ka adeegtaa laakiin 5 sano kadib midkood wuxuu ka tegay waddooyin iskuulo isbitaallo iyo hay-ado shaqaynaya kan kalena wuxuu ka tegay barakicin muran eedeen iyo kalsooni daro labadoodu waxay isticmaaleen erayo isku dhow laakiin taariikhdu waxay xasuusataa natiijada ma aha hadalka oo keliya taasi waxayna baraysaa cashir weyn hadalka waa bilow ficilkuna waa imtixaanka ugu dambeeya
qaybta afaraad muwaadinka caadiga ah door muhiim ku leeyahay marka laga hadlayo wadaniyadda dad badan waxay faraha ku fiiqaan madaxda laakiin aan isweydiino dalka yaa dhisa hal qof maya xukuumad kaliya maya shacab kaliya sidoo kale maya dal waxaa dhisa wada shaqaynta shacabka iyo hoggaanka haddii qofku qashinka waddada ku tuuro kadibna uu yidhaahdo waan jeclahay dalkayga waxaa habboon inuu isweydiiyo jacaylkaas ficilkiisu xaggee ka muuqdaa haddii qofku saf dheer ku soo hormaro isagoo adeegsanaya musuq ama kadibna uu ka hadlo wadaniyad waxaa isweydiin mudan wadaniyaddu ma hadal baa mise waa ixtiraamka nidaamka iyo xuquuqda dadka kale mararka qaar waxaan sugnaa in madaxdu isbeddesho laakiin ma isbeddelnaa annaka qudheenna Soomaaliya wadaniyaddu waxay ka bilaabataa waxyaabo yaryar sida daacadnimada ixtiraam sharci ilaalinta hantida guud run sheegid caawinta bulshada kuwani waa ficilo aan u baahnayn xil ama awood waxaa jira dalal dunida ka mid ah oo aan hodan ku ahayn kheyraad badan hase yeeshee waxay gaareen horumar sababtoo ah dadku waxay qiimeeyeen nidaamka kalsoonida iyo mas'uuliyadda dhanka kale waxaa jira dalal leh kheyraad fara badan sida Soomaaliya balse caqabado ay ku noqdeen musuqmaasuq kala qaybsanaan iyo kalsooni la'aan casharku waa cad yahay horumarka keliya kuma yimaado kheyraad badan ee wuxuu u baahan yahay dhaqan wanaagsan iyo isla xisaabtan su'aalaha daawadayaasha hadda adiga ayaan ku weydiinayaa muwaadinka wanaagsan sidee lagu gartaa ma hadalka badan baa muhiim ah mise ficilka maalin kasta la sameeyo sidee loo dhisi karaa kalsoonida shacabka iyo hoggaanka maxaad adigu maanta samayn kartaa si aad uga qayb qaadato horumarka dalkaaga jawaab sax ah ma jirto oo qof kaliya leeyahay laakiin doodda iyo fikirka furan ayaa horseedi kara xalal wanaagsan qaybta shanaad maxay taariikhdu ina baraysaa marka aan dib u eegno taariikhda dunida hal xaqiiqa ayaa si joogta u soo noqnoqoto daawade dal walba wuxuu soo maray waqtiyo adag waxaa jiray dagaalo waxaa jiray kala qaybsanaan waxaa jiray musuqmaasuq waxaa jiray hoggaan wanaagsan iyo hoggaan lagu muruqsanaa laakiin hal shay ayaa kala saaray dalalkii guulaystay iyo kuwii dib u dhacay ma ahayn oo keliya kheyraadka ma ahayn tirada ciidanka ma ahayn quruxda calanka waxay ahayd awoodda bulshada ay u kala saareen erayada iyo ficilada taariikhdu waxay ina xasuusinaysaa daawad in halyeeyada dhabta ahi aysan had iyo jeer ahayn kuwa ugu codka dheer mararka qaarkood waa kuwa aamusan ee si joogta ah u shaqeeya waxaa laga yaabaa inaan magacyadooda si badan loo maqal laakiin raadkooda ayaa muuqda dhinaca kale waxaa jiri kara dad hadalkoodu aad u qurux badan yahay balse marka wakhtigu dhaafo aan la arkin wax isbeddel ah oo ay ka tageen sidaas darteed taariikhdu waxay dadku ku xukuntaa waxqabadka ma aha hadalka oo keliya qaybta lixaad haddaba waa maxay wadaniyadda dhabta ah waxaa laga yaabaa in qof walba uu leeyahay qeexitaankiisa laakiin haddii aan isku dayno inaan ka soo saarno hal fikrad oo midayn karta dadka badankood waxaa laga yaabaa inay noqoto tan wadaniyaddu waa inaad dalkaaga u rabto wanaag islamarkaana aad diyaar u tahay inaad adiguna ka qayb qaadato wanaaggaas waxay noqon kartaa inaad ilaaliso hantida guud inaad run sheegto marka ay adag tahay inaad sharciga ixtiraamto inaad ka shaqayso midnimada halka aad ka horan lahayd kala qaybsanaan inaad dhaliisho si xal loogu helo ee aan loo burburin qofka waddankiisa jecel ma aha qof aan weligiis wax dhaliilin mararka qaar jacaylka dhabta ahi waa inaad tilmaamto qaladka si loo sixo laakiin daleecayntu waxay qiimo leedahay daawade marka ay la socoto cadaalad xushmad iyo xal su'aalaha ugu muhiimsan haddaba aan mar kale isweydiino ma ku filan tahay in qofku qaado heesta calanka maya ma ku filan tahay inuu calanka lulayo maya ma ku filan tahay inuu had iyo jeer ku celceliyo ereyga wadaniyad sidoo kale maya su'aasha saxda ahi waxay tahay muxuu uu sameeyaa marka qofna aanan daawanayn sidee ayuu ula dhaqmaa hantida guud sidee ayuu ula dhaqmaa dadka kale muxuu sameeyaa marka uu helo awood halkaas ayay ka bilaabataa imtixaanka dhabta ah ee wadaniyadda gunaanadka muuqaalka bulsho kasta waxay leedahay dad aragtiyo kala duwan qaba taasi waa wax dabiici ah daawade laakiin waxa aan dhammaanteen ku heshii karno waa in dal kasta oo u baahan yahay daacadnimo isla xisaabtan sharci la dhooro iyo muwaadiniin ficilkoodu ka weyn yahay hadalkooda waxaa laga yaabaa inaan ku kala duwanaano siyaasadda waxaa laga yaabaa inaan ku kala duwanaano fikirka laakiin haddii aan ku midaysanaano danta guud waxaa fududaanaya in la dhiso mustaqbal ka wanaagsan kan maanta waxaa laga yaabaa in wadaniyadda dhabta ah aysan ahayn waxa aan sheegno ee ay tahay waxa aan ka tagno marka aan meesha ka tagno
haddii aad muuqaalkan daawato ilaa dhammaadka waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo aragtidaada adiga sidee u qeexaysaa wadaniyadda ma u malaynaysaa in ficilku ka muhiimsan yahay hadalka mise labaduba waa lama huraan fikirkaaga ku qor qaybta faallooyinka si aan dood caafimaad qabta u yeelanno haddii muuqaalkani ku siiya aragti cusub like saar la wadaag asxaabtaada hana iloobi inaad subscribe saarto janaalka si aad ula socoto falanqayn maskax furan ah anigu waxaan idiin rajaynayaa nabad horumar iyo mustaqbal wanaagsan mahadsanidin